muuqaalkan waa muuqaalkeenii saddexaad maanta ay bishu tahay 22 bishii koowaad 2022 waxaanu ku qaadan dhigi doonaa daqiiqadaha kooban ee soo socda haddii aan leedmo shalay waxaan ogeyn gelinkii maaragtaa dhexe oo xilligii maaragtaa duwal ku xilli kaliilada ay ahayd oo duhuradii ahayd inay hadleen maaragtaa guriga Cabdi Xaashi ku qabteen boqor buur madow iyo Cabdi Xaashi iyo duwal ku run yahay maaray iyo rag nooca ogaan hadleen maaragtaa dhaliilo xoogan ay ugu soo jeediyeen ninka la yiraahdo Roble ay ku tilmaameen waliba in maaragtaa duwal ku run aad iyo aad uga liito farmaajo ay ku sheegeen kudka guri qanjo guur lagu tilmaamay ayadoo xataa waliba qaybta Ingiriiska uu hadana uu xataa u qaatay ninka la yiraahdo Cabdi Ismaaciil Samatar iyagu aad iyo aad maaragtaa dhaliilo xoogan maaragtaa oo fadeexad ku noqon kara maaragtaa siyaasadda Soomaaliyeed ama Roble maaragtaa ganacsi ay u soo galay siyaasaddan inuu ka faa'iideysto doorashada uu ka maaragtaa macaasho uu lacag ka sameeyo guryo ka sameeyo waxyaalo u soo galay ayay ahaayeen waa nin u joojinayana maaha ase ahaatee waa ceeb guud oo Soomaaliyeed ama mid maaragtaa taariikhda noo gelaysa in maaragtaa nimanka maaragtaa duwal ku dir waqooyi kuraastoodii la boobo hadduu alla ku roon yahay nimanka la yiraahdo maaragtaa shir ayaa la abaabulay isla habeennimadii dabcan labada xafiisba way ka faa'iideysanayeen labada xafiisba way ka faa'iideysanayeen oo maaragtaa kan farmaajinka Roblaba shirkii xalay iyo abaabulkii degdeg ah iyo maaragtaa duwal ku roon yahay la soo abaabulay farmaajo labada meelba waa u faa'iido midkii xalay la qabtay iyo midkii shalay la qabtay midkii shalay la qabtana Roble ayuu mar hore uba sheegay doorashada inuu ka joojiyo uusan wadi karinba sidaas la mid ah xalayna fursad bay u heedo maaragtaa duwal ku roon maadaama Cabdi Xaashi nimanka in badan ay eedanayeen farmaajo inuu ka boobay inay ku sheegayeen in uu maaragtaa duwal uga faa'iideysto inuu kuwa uu maaragtaa ra'iisul wasaaraha la raali geliyo Roblana fursad ay heedo raalidoos ayaa wax weyn u arkayay haddaba maxaa ka runa inuu kuraasta boobay dabcan waa run oo waa dhab in maaragtaa inuu kuraastan u boobayo kuraastan wuxuu u boobayna wax kale ma waa ninka Siciidani ayaa dhigta wuxuu ugu sheegay hadal la beena ninka wani iska suufiya maaragtaa uu soo farmaajo uu soo isku lahaa nin hawiyaho maaragtaa hadduu alla ku roon yahay meel iska fadhiya ay raadsa nin maaragtaa hadduu alla ku roon yahay maamahdi wuxuu aaminsanahay warankaaga waxa loo dhiiba karaa loo dhiibtaa nin aad ka qaadan karta bari ninka wiliita hawiya ayuu dabcan soo helay uu keenay hadduu keenana maaragtaa waa uu la rogantay ninkan Siciidani suufiga wuxuu dhigta ugu sheegay inuu yiri war anigoo dhan madaxweyne ku soo baxay adigu ra'iisul wasaarahan ka dhigaya Aranjan iyo Siciidanina maaragtaa dabcan ninkan suufiga dhulka la jaray xogaa lacagaana oo imaaraadka uu ka qaatay wataan ogeyn maaragtaa raaligelintii uu adwaal ku la ilmeynayay oo la gaga lahaa inuu garoonka maaragtaa ka soo jeedinayay markii loo keenay xogaa yar oo baasta maaragtaa waxaan ognahay sidaas la mid ah inuu maaragtaa imaaraadka u dhuuman doono mar dhow uu xagga tagi doono isagoo xogaa ka soo qaadan doono xogaa baasta iyo waxba maaragtaa iyo bur ah wixii uu maaragtaa baahida dabcan inta hayso inuu uga sii baxo ninka la yiraahdo Siciidani wuxuu yiri dabcan wuxuu u boobay kuraas oo Siciidani la ima yiri kuraas kama hadlaysid hadduu la koro labada xafiisna waa ka faa'iideysteen farmaajo labada fursad bay u tahay Cabdi Xaashi Roble maaragtaa eedeynaya ma ka ashkatoonaya waa u fursad sidaas la mid ah inuu raaligelin ra'iisul wasaarihii uu soo diro labada waa u fursad bayeed labadii fursadna waa uu ka faa'iideystay maaragtaa hadduu la koro yahay mar walba doorashadiina dabcan sideedii ku socon doonta kuraasta uu rabay ninka la yiraahdo farmaajo oo u qabilsanaa mahdi guuleedna way soo baxayaan qodobka markay sidaa ay tahay haddii aan leedmo waxaa dhacaysa marka halka in maaragtaa groupkii Cabdi Xaashi boqor buur madow in maaragtaa ay ku guul dareysteen fursadda ay ka dayacantay ama maaragtaa hadduu alla ku roon xabadda ay la seereeyeen halkii ay maaragtaa shiishka u saareen maaragtaa hadduu alla ku roon yahay eedeymihii cuslaa ay u geystaan ninka aawadeed hadda ahaatee Roble waa nin boobaya kuraasta maaragtaa lacagna ka sameynaya mar waxa weeyaan marna ra'iisul wasaare dhigta lagu sheegay marna lacag kaasha ayaa bangiga loogu shubay oo xisaabaadkiisa loo buuxiyay waa nin ay wax ka maqayeen guriga qabya ka yihiin aad iyo aad u aradan dhanka qalbiga maaragtaa hadduu alla ku roon yahay nimankaas dirta waqooyi sidaa weeyaan hadalladoodii shalay oo dhan ay maaragtaa meel walbaba haystay idaacadihii baraha bulshadaba haystay labada dhinacba sidaa weeyaan faa'iidada laba afleyda farmaajaha helay dabcan sidaa weeyaan sida dhabta hadduu alla ku roon yahay kadibkeennan intaas ayaan ku soo gabagabayn doonaa waa idin salaam